بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله maanta safar ayaan ahaa waxaan u socday magaalada Baraawe anigoo ah Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudey gudoomiye ku-xigeenka ee baarlamaanka waxaan u socday kursigii yaalay Baraawe inaan aado oo aan u tartamo waxaa dhacday maanta in airportka aadan cadal igu celiyo lii diido inaan meesha ka raaco aniga staafkaygii ee aan u socday Baraawe diyaaradiina lagu amray la yiri ninkaas ma soo qaadi kartid xataa la isku dayay la yiri war afar qof oo odayaal la socday asaga hal la qaada la yiri hataa bataatan ba asaga hataa lama keeni karo meeshan ma imaan karo asagaan ba ogolaan la yiri markaan weydiiyey qoladii shirkadda diyaaradaha waxay yiraahdeen amar ayaan la soo siiyey maamulka koonfur galbeed amarna soo siiyey qolada aviationka Baraawana waxay dhaheen haddaad soo qaadaan Baraawa amar la'aan diyaaradda waa soo ridaynaa ay nagu dhahanayeen waa arrin la yaab leh oo adduunka aanan ka jirin in la yiraahdo qof tartamayo ma tartami kartid inuu tartamo darteed diidil la qabal diidaa in la yiraahdo ma imaan karo in la yiraahdo safar uu geli lahaa xaq uu leeyahay sharcigu u sii la yiraahdo ma safri kartid arrintaas waxa waaye arrin meel ka dhac ah oo gif ah xuquuqda bani'aadamka uu qofku xaq u lahayn waxad gudbay inay tahay waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto iyo beesha caalamka intaba waxaan u sheegayaa xadgudubkaas inuu maanta igu dhacay sababta loo diidan yahay inaan meesha tagana ay tahay inaan u tartamo kursiga qabiila iskale qof iska malaha cid gaar kalena malaha qabiil kalena male marka kursigii qabiilkii lahaa inuu u tartamo la yiraahdo adiga ma tartami kartid nima anaga rabna ma ogin nin kale meesha uma tartami karo arrinka asaga dadka ka dambeeyna waa la ogyahay waa garan karnaa waana naqaanaa mana la isaga hari doono arrinka asaga mid iskaga hari doonana ma aha xisaabteedana way jirtaa waana la xisaabtami doona haddii loo maleynaayo hanjabaadii iyo guulguulkii iyo handadaadii in ma aragtaay dadka in lagu cabsiiyo la rabo in wax looga harayo taas la iskaga mahari doono waana lagu xisaabtami doonaa maalinkeeda inay tegi doontaa waxaan u sheegayaa inaanan ahayn aniga qof la handadi karo qof la handadi karo loo hanjabi karo ma taqaan la guulguuli kari miihi aniga maxaa yeelay aniga wax aan raadinayo xuquuqdayda waaye ma ogay xuquuq bani aadan kale maaha wax aan raadinayo marka intaas waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed nin kasta oo sama jecel inaan u sheegan rabaa inay maanta waxaas qabsadeen sidaas ayaan rabaa inay idin sheegaan mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة جرائد من سيداس أيوكو سابسين يهي ساسنا بسرعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته